والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سؤالها إن شاء الله تعالى لبس سؤالات ودرسي كبعدي يلا سوق بي إن شاء الله. سؤال شكوى وحي لا هاي أنا جو سفر كجرة هدي عن وقت الصلاة سوق لي أنا قراني ماشي قبلة ويجرتي محان سمانية. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. أما بعد استاذ إلهي سبحانه وتعالى وحنا نوجدي ونقول شيء إن نؤتكنه قبلة قفك إنه قبلة حقيقة قابله وحكم تهاي صلاتها وحيالها أركان تذا كم تها استاذ بصلاة وحلاتها هاي وحلو يقانه شروط إيوه أركان شروط وحل هذا وحي كبحسن صلاة أن كجري سيد طهارة دي أوكله قف طهارة قاته iyaduna waxay ka mid tahay shuruudaha salaada in qofku u jeesto meesha la yiraahdo qibla u jeesto arkaanna waxa la yiraahdaa salaada gudaheeda waxa ku jira sida takbiirta ihraamkii oo kale faatixadii oo kale rukuucdii oo kale iyo wax la mid ah marka waxa laga marmaana inaad salaada marka tukanaysid aad qiblada qaabisho hadii aad qibladii garan weydo waxa laga rabaa inaad dadaasho oo meeshii aad ku filayso in qiblada aad u tukatay in qiblada ka xigto inaad u tukato baa laga marmaana salaada ka tagmaysid oran maysid qibladii baan garan waayay laakiin waa tukanaysaa meeshii aad marka u malanaysid daniga u badan yahay inay xigto ayaa tukanaysaa hadii marka muddo ka bacdi aad ogaatay inaad meel kale u tukatay salaad waxba soo cilmaysid laana nabiga kaleey salaatu wasalaam saxaabadiisa oo habeenada kamid safar ahaa ayaa waxa hawadi ka qariyay ama cirki ka qariyay daruura ka qariyay saxaabiga xadiiska waranaya wuxuu leeyahay waxaan isku khilaafnay meeshii qiblada naga xigtay wuxuu yiri nin kasto anaga naga mid ah wax u tukanay ala xiddi gaar baan u tukanay qof waliba meeshu u tukada wuu calaamadiyay markuu waagu bariyay ayaa qof walba wuxuu ogaaday meeshii xal loo tukanay inay meel sax ahayn ay qiblada ahayn ka bacdi nabiga loo sheegay nabiga kaleey salaatu wasalaam ma aanu oran salaadu soo celi way ka ansaxday marka waxa la doonayaa inaad ku dadaasho meeshii qibladu ka xigto ka bacdina aad u tukato hadii aad garan weydo soo maaha meeshii aad u malayso marka aad tukanaysaa oo bilaa tawfiiq salaad kale waxay leedahay qofka markuu safarka yahay gaariga dushiisa ma lagu tukan karaa qofku markuu safarka yahay gaariga dushiisa ma lagu tukan karaa nabiga kaleey salaatu wasalaam salaado waxa jirta oo ku tukan jiray gaariga dushiisa iyo salaada aan lagu tukanin aan ku tukan jirin gaariga dushiisa mesela salaada sunnada oo kale nabiga kaleey salaatu wasalaam markuu safar ku jiro gaadiidka uu saaran yahay ayuu ku tukan jiray hadii salaada aad tukanaysa marka ay sunno tahay gaadiidka asaaranta meel kasta kula jeesto waxa ku tukanaysa gaar dushiisa laakiin hadii salaadu farad tahay nabiga kaleey salaatu wasalaam kuma tukan jirin salaad farada gaariga dushiisa uu dagi jiray yani gaadiidka dushiisa uu dagi jiray marka waxa laga doonayaa inaad degto oo aad ku tukato dhulka hadii laakiin gaadiidka asaaran tahay uu yahay midaan dagi karin adigu midaan maamusho maaha sida arigan joogno kale diyaarada la isticmaalaa train baa la isticmaalaa basas baa la isticmaalaa aduu aan xukumi karin oo aan joojin karin salaada waqtigeedina uu soo gaaray maxaa sameynaysaa waa ku tukanaysaa gaadiidka asaaran tahay dusheeda ku tukanaysaa wayna ka gudaysaa waa gaadiidka aad ka degi karaa weeyaan ama istaajin karin salaada dusheeda ku tukanaysaa laakiin hadii aad awood u leedahay inaad adu gaadiidka wadato laguma banaana salaada faradka inaad ku tukato gaadiidka dushiisa laakiin sunnaha waa ku tukanaysaa meel kastoo kula jeestana dhimale wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam jazakumullahu khair wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.